kulanti wacan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada qaybtii labaad ee sheekadii halkudhigeedu ahayd gar jacayl ha la qaado. gabadhii Faadumo ahayd waxa ay ku jirtay jawi bariga dhexa meel aabaheed baa ka haystay meelna wiilkan adeerkeed dhalee aad moodo in markaasi lagu suntayba markuu arkaaba daba taagan sidii loo yiri adaa lagu siiyey ayana loo yiri walaalkaaba lagugu darayaa ayadana ay u diiday isna uu u ogolaaday fikirka kale ay qabtay ayaa waxay ahayd wiilkii ay nafta siiday aadkan ay u jeclayd oo ay baryahan weyday wixii kala xannibay iyo wixii jiraaba ha ahaadane goor dambe ayuu telefoonkeedii soo garaacay teleefoonkii hadday fiirso waa lambarkiisii sida markaasi tukacaana helay nasiib badnaantiisa ayay mar kaliya boodday wiilka gees kaga istaagtay caanihii daate laakiin hadal baa meesha yeelay waxa uu ahaa hadalkuna sidan Faadumo waan jeclaa xabiib macaan inaan ku imaado laakiin waxaa jira xaalado badan oo ii diiday inaan ku imaado gurigiina waxaa runtii ku geedaaman dhagaxyo badan ciidna waa ay ka soo horeysaa inta badanna wadooyinku waa ay xirnaayeen runtii meel aan kuu soo maro ayaan waayey jacaylku waa halkiisii kalsooni ayaa naga dhaxaysa xabiib macaan waana ku jeclahay sida ugu dhaqsiyaha badanna inaan kugu imaado ayaan rajaynayaa intaa goortii la yidhi ayay la hadashay una sheegtay inay mar walba sugayso waxay kaloo dareensiisay in guriga xaalad ay ka jirto wiil lala rabaana uu guriga joogo indha kalena aan lahayne ayada oon mar walba albaabka ay ka baxaysa iyo meesha ay maraysa kaliya fiirinayo ayadoo arrinkaa ku calaacalayso waxay tiri haa xabiibi macaane waan dareemayaa xaaladda jirta anigaba waan ku jecelahay kalsoonida ayaa ah mid aan markaa buraynin kalsoonida aan kugu qabana biyaha badda waa ay ka badan yihiin xabiibi waxaa jirta arrin kaleeto oo guriga ka jirta mid reer baadiya oo aabbahay ila doonaya laakiin aniga adigan ku jecelahay ma doonayo qofkan qalbi dhagaxa ah intaa goortii ay tiri telefoonkuna ay ka hadlaysay ayaa dhabarkeeda dambe la soo istaagay hadday kor u fiiriday waaba aabbaheed teleefonka ay ku hadlaydo inuu odayga maqlay ayay mooday beerka ayaa loo dhaafay cabsi ayay dareentay aabbo hooyo eeddo aayo waxbay isku dardartay oo aan la garan karin ayadoo lafteeda xataa ay ku yabaashay kuwaasoo ahaa eeddo faysal adeer aabbo maxaa jiro maxaa kugu dhaca aabbo naadha qur-aan baa lagu saarayaa maxaa aabbo maxaa aragtay ma kala orodka magaalada adna maskaxdaadii baa kala orod gashay magaaladii baa kala ordaysay adna miyaad kala oroday aabbaas tuugmiya maalin kasta wax u gaata maansi mar kastan telefoonku hadlaa dhabarkeenu soo istaagaa naa kor u hadal maxaa dhahda aabbo waxaan ku yidhi telefoonka ma awoowaha baad kala hadlaysay waxaan la hadlayay gabar saaxiibtay gabar baad la hadlaysay aabbo gabar faysal la yidhaahdo ebadkiima maqal maya faa'isaa la dhahaa faysal adaa u moodee yaa faa'isaa la dhahaa aabba adaa faysal moode war waxay rabtaa ahaatee kow dheh duqaana siyana daba dhige laakiin waxaan kuu sheegayaa muqdisho waa iska warayda haye kii mucaarada iyo kii mucaafada waa is og yihiin haye ma fahmaysaa maxaafad iyo maxaa ka wadaa ma ku fahmin war jid kastoaad maraysaa qodxaan baad talle lugta meeshaad dhigaysaa ka fiirsan ku leh haye aabbo haye haddaadan tallaabada ka fiirsanna waxaa layidhi cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaaba leh aabba maxaad waxa ka hadlaysid maxaa ii sarbeebaysaa adi sidii fiidmeertibaad halkan ku ro naa wiilkan walaalkaa maxaad u dhinac maraysaa horta aabba adi kan maxaa igala doonaysaa aabba adi ma inacda aabbo maxaa kugu dhacay ku socda hadalkaa tiri aabba waa nabad baan ku yidhi wax dhibi ma jiraan anigu waxaan ku idhaa tallaabo dheerayn haddaad tallaabo dheeraysana anaa soo gaabinayo bahal jeebba la yidhahdaa intaan qaato aabbo kaa dadka waalanaa lagu xiraayo annaga ma anagaa waalan madaa fiyow waa fiyooba aabbo ma adiga hadda aniga eedda ugu wacye maya aabbo waa kaa naxay macnaha ma kuu jeedin soo maaha mana iga naxaysaa may nixitaan oo aan kaa naxayo adiga maaha aabbo laakiin waan ku fahmi waaye maano haddaa tuugga markuu wacday haddii la qabto waa naxa soo maaha tuug maaya aabba gabadhaadii baan ahay maxaa kugu dhacay adiguna faa'ise iyo faysal dhexdoodaad kala sanyaalinaysa faysal waa wiilka aabba sodogu noqon rabtida midkaan dhagaxaa nagala daba ordaysaaye faa'isaduna waa adiga may waaba qoslaysaaba naadha hooyada ay adiga ma sheekaysataan miyaa hooyaday howlay ku mashquulsantaha annagana waxbarashaa ku mashquulsanne
goorma isqabanaa hooyo adaaba iga daran ba aabbo dhabarkayga taagan markaan taleefonku hadlay waxaa codkaaga la waweynaadaad qabtaa ee mid baan kuu sheegay waxbarashada waay codkan wuxuu u weyneeday wiilkan fad ama ha fadin wey waa lagu fadsiin fad ama ha fadin maaha aabbo adi dabaal maata horta aabbo waxaan rabnana kuma dhihi karna aabbo reer magaalna waata maxaa kaa qaldan aabbo midkan dhagaxa ee soo taagan ee cirbuu bololeen suu geella u raacay maad nala doonaysa aabbo waxaan ku yidhi aabbo geel horta soomaalidu waxay ku faanta wey laakiin waxa laga faana magaalada waa yeelana ma aragtay geel weligay ma aragani ruux daadihinayana ma doonaya aabbo maxaa kugu dhacaaday magaaladan soo dhex maray baabuurka gadaal fur lugaha xagga ka wareeji digsigan soo rog halkan fiiri wabtina waa socotaa aabba ad marba filin ii saaraaday marna filin waxaa ii saartaa midkaan reer baadiyaa ah marna filin waxaa ii saartaa magaalada way xiranta aabba ujeedkaaga caddee adi ujeedkayga wuxuu yahay jilin soomaaligu inuu shaqeeyo dollarkan baasina wareeriyana naga haro qaran haddaanu lacag lahayn qaran haddaanu lacag lahayn astaan weynu ka maqan weye meel walbaa kunkiibaa iska yaallo aad mooddo inuu tacbaan yahay kow dheh aniguna xisaabtan baan ku jiraaye waxaan ku idhi aabbo faysal iyo shuqul waad kala saaraysaa faysal waa reer magaal muqdisho jooga soo maaha anigu kala maaqan ciyaalkan jeegada xirtayo sarwaalka aad moodona qayb ka mid ay faydantaada anigu kuwa ma doonayo waxaas waa laga dayn karaa anigu midkan walaalkay dhalan aqaanaa orijinadiis ma fahamta walaalkay waayo aabba kan calay kulli xal waa baxay kow dheh garabkaagan ku yidhi gabadhayda adiga waxaan ku yidhi walaalkaa ka fikir aabbeena yaabuu leeyahay wallaahi bilaa waxaan sameyna ma naqaano faysalna waan jeclahay aniga goortii uu ka tegay ay sii dhaqaaqay ayaa mar qore waxaa dhegaheeda soo gaartay hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa jacaylkana waxay ah heestaas ayaa dhegaheeda ku soo dhacday taasoo ahayd hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarka ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarka ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga goortii ay heestii dhammaatay axbaarna ay dhegaysatay ayay dhinaceeda firisay waaba kii adeerkeed dhalay oo misna meesha taagan indhahana aad mooddo in markaasi giirka laga bixiyo oo siduu gabadha u eegayo hal mar intay firisay iyadoo weliba dhoolla caddaynayso rabta ninkan inay sirto ilaan horaa loo yidhi sirnaag lagama salgaaree ayay ku tiri waa wuxuuse hore uga baran maanta waa saaxiibkaaye seetaa in adeerkay aabbay yaabo maraysaa beledkan u socdaa sarwaalluunkaan rabaa inaan soo gato adi markaan ku arko codkaagaaba hadalkaaga lahjadaadaaba gashanaaba ilaahay amarkiis xaa sarwaalluunkana xaa la dhahaa sarwaalladan wiilashaan wadwataan ma arkin miya adina reer baadiyo war kaas waa laga tegay haye waxaan ku idhi adeerkay waa kuu qayliyey waa maqlaayay adiga dhegaysa leh aaba markuu gadaal iga soo maro maaragta oon telefoonka ku hadlayo dhegaysa leh adi waardiye camal adna i fiirsa leh adna horta waxaan ku weydiiyaa aniga xaa igu diiday horta sukan raabina saaro waa dhadhaan waa laftarkiisa waa iska dejinaya qayla wax ma lagu keeni karay horta kaale abuu kaale horta kaale wax ku sheegaa maante aniga ha kaale in soo fariis kaale inteen fadhiisaa halkan soo fariis kaale ayaan naga dhaf abbay mahan ma fadhiisa kare waraadi ani waa isla dhalanay horta kaale maanta qorshaa ku haayay kaale in soo fariis riiraxyaa igu kacaysa maad fadhiisa maaya sheekadayda iyo shaag shimaan isguursaynaa oo aroos noola dhigaa gurigan weyn oo adeerkay ii dhisay aan dhinac ka degaynaa badarkaanna waa iska cunaynaa dad kaleba waa cuno waayaan war kaale adi badarka meeshaa rabtid ka dhow ma gaste kaale sheeka ku haaya adi horta warkayga maqal gurigan ninac iskale xoolaa adi tacbata miya adeerkaha iskale waxaa tacbataa lagu faanaaya horta kaale in soo fariis sheeka kuu sheegaaye qalbi dhagaxa iska daaya kaale horta gabar caqli badanaa tahay haye
aniga inaan wax kuu sheegaan rabaa adna inaa wax ii sheegtaa rabtaa warteedaa kutayda ran ninkaan wax aniga waxaan rabaa inaan idinku guursado baabuur ina tarayal ii kaa saaro oo 3 habeen iyo 3 maalin aan tuuladii waa yaala aan u sii soconno oon tuuladii ku geeyo oo mahaas ku dejiyo acuudu billaah lo'na waa joogtaa geelna waa joogaa erina waa joogaa oo subagaan noo ruuxe gabar qurux badanaad tahay mahaasaa jooge gurigaasaa ii ilaa markii subag si loo ruux maan naqaana anaga naga celish waa lagu baraa warkaas iska dhaafay fiir ani walaashahaya ah ma fahamtay sheeka ku haayaahe ani ninaan jeclaha aabbadan ninaan jeclaha aan dhahana aduu ila kaa rabaa marka waa ku baryaa walaashahayaan ahay ani adima isguurso korno habartaha ii sheegtay gabartayda nin kaley rabtaa hay tiri hooy iska dhaaf adi ani adaa saaxiibeen horto kaale adoogana waa ii sheegay wuxuu yidhi gabartan shukaanso nin kaley rabtaa adi fiir ay dabaal maanta horto adi qofaa jeceshaha ma rabtaa in inta lagaa celiyo naa kaleeto laguu guuriyo horto ay dabaal maxaa iskaga dhigay horto ani adi waa saaxiibeena walaalaa nahnay wax isla dhashta waxba ma dhaano ma fahamta adi marka iga bootin noo saaxiibo adoogan maskiinka baasidiisa rabtaa nin ciyaal suuq inaad jaabka ugu shubto ama uu kugu darsado maxaa kaa gala adi taas adi maadaa lacagaa soo shaqaysata dhididkaaga miya adi maxaa kaa gale sheekadoodu waxay ahayd mid markaasi muran badan dhalisay oo dhinacyo badan markaasi taabanaysay cabbaar baa la wada hadlay wax is-afgarasho ah oo markaasi la gaarana ma aysan jirin gabadhuna aad ayay markaasi u sii fiirinaysa ninkan iyo hadallada sida uu u kala dhigdhigayo wax badan baa ku qarsanaa laakiin ayadu ma aysan ogeyn ninkan ay moodayso inuu reebaadii yahay ee guriga joogo ee odagan adeerkiisa meesha la joogo wax badan baa ku qarsanaa laakiin ayadu waxay unu haysatay sawirka ay haysataa wuxuu ahaa inuu yahay ninkan nin reer baadiye ah laakiin ninkan wuxuu ahaa nin ujeedda badan layidhahdo ujeedda badan waxyaabo badan ayuu markaasi baadigoobkooda uu ku jiray kuwa uu hore u soo laqay iyo kuwo kale u rabaa haddaba inuu qaato intaba sheekadiisu waxay ahayd kuwo markaasi wax badan aan laga fahmi karin qofkii si weyn u darsan mahayna goor dambe ayay gabadhii gurigii iyadoo tartiib u socoto qolkeedii isaga laabatay iyadoo weliba calaacalayso kana fikirayso halkii ay sheekadan ay dubbaha dhigan lahayd sababtaa way aragtay in aabbana soo taagan yahay hooyadeedna aysan hadli karin oo ay odaga ka baqayso kanna uu soo taagan yahay ee waa ku rabaadada un ku hayo ayana ay meel kale ay rabto laba kala bariday kala warla qolkii goorta ay gashay ayay bilowday inay calaacasho ayadoo dhahayso intaasaan kusoo gabagabaynaynaa akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa qaybtii labaad ee sheekadii halkudhiggeedu ahayd gar jacayl ha la qaado intaynu qaybta xigta aynu ku kulmayno waa dhammaanba asxaabtii reediyo shabeellooda ku wada dhaafayo nabadgelyo